dhaweyto waxaan sii daayay 950 macallin oo gumaystay 950 kaas waxay ahaayeen qaar magacu ka qaldanaa oo ilaa dawladii riyaal ilaa tii siraayo mushaar ka qaadanayay oo magaca loo saxay waxa uga jeeday macallimiinta aan gumaystay u sheeg waayay هذا كمان كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مجاعي هاي ترحنا على المكان. كتسن بهذا وسعرده وحبرشة. في الجر وسعرده وحبرشة بسوي شيء مدل حتى وصلنا هذا. أنت أنا كشقين هي معلم تبرع وطلق هي غيرك الجمهور الصناعة أنا وش غيره. تبرع أنا وش غيره هي. أنت تبرع وش غيره هي. ما دام أنت أصلا تبرع وش غيره هي وحنا دول إذا شرفت لك مكسب إني أنا يحوي كان حقوق وراحين. أنا كله. maadaama gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha oo Sharmaake uu ku dhawaaqay macallimiin ku gaaraysa cadadkoodu 954 macallin oo uu yiri waliba waa macallimiin qaranka u soo shaqeysay muddo badan oo kuna shaqeynayay bilaa xuquuq ayaanu maanta u sii deynay maxaa ahaday mushaarkooda joogto ee doonaan ha ku hambalyeystaan habna bishaaraystaan waxaan leenahay madaxweyne maadaama tii madaxweynihii jamhuuriyadda dalka aan u dooranay aanu hariya habeenba loo taagnaa inuu Sharmaake kula galay sawir beena oo kula galay oo haayeen nimankan u sii daayay macallimiintii mushaarka qaadanaysay ee ku jirtay beerka ilaa dawladii daayiraale ilaa tii siraayo waxay qaadanayeen mushaarka maadaama oo ay mushaarka qaadanayeen imikana uu ka dhigay dad cusub oo mushaarka qaadanaya sida awgeed waxaan ku leenahay madaxweyne Sharmaake waxa uu ku hadlayaa waxa weeyaan waa been waxba kama jiraan waxaan ku leenahay dalka adiga lagu doortay adigu inaad ogaato wax kasta oo jira in lagu ayaan ka codsanna mid labaad kale waxaan leeyahay maadaama aan mahay macallimiinta intaas oo dhan u soo ku shaqeynay bilaa guno hatta ilaa iyo NRC baan ku shaqeynay oo ma samsam abdi aanan baayntayna tii aniga la wareegay naga dhaaqday halkii ilaa imka halkii waan taaganahay waxaan leeyahay ummadda beenta ha laga daayo qaranku been kuma shaqayn karayo waxa halkaa qaranka dhiga waa beenta la isku hasaawanayo ee la isu sheegayo runtu haddii lagu shaqeeyo wax walba hagaagayaan waxa leeyahay gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu inuu nagu galo annaga maaha oo inuu wax qabad naga dhigta annagu intaas oo dhan bilaa guna ahayn oo aan mushaar qaadan oo qarankayga u shaqeynay oo habeenay maanu taagnayn oo ummadda yaryarada jiilka soo kacay wax baranay oo ilaahay dirtii u shaqeynay maadaama ay taastay inuu maanta yiraahdo waxaan qaatay 954 macallin oo aanay waxba ka jirin waxaan leenahay madaxweyne arrinka dib u noqo dalka adiga ka mas'uula madax meel taabto oo ka sareysa ma jirto haddii aan nahay annagu macallimiintii dalka aad iyo aad baanu cabasho uga muujinaa arrinka oo Sharmaake soo saaray waxaana weeye wax soo kordhiyay hal qof biirarku mu darin intuba ilaa dawladii riyaal biirarku ku jireen mushaarkana way qaadanayeen bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Jaamac Umar Cabdilaahi waxaan ka tirsanay macallimiinta ka hawlgala dugsiyada dawliga gaar ahaan waliba macallimiinta kaga hawlgala sida tabarucaadka ama bilaa mushaharka waxaan halkan ka muujinaynaa annaka u dirayna cabashada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee wadankan mas'uuliyadiisu ay saaran tahay waxaanu cabasho ka muujinaynaa ka dhan ah inanka yar ee gudoomiye Sharmaake ee fadhiyaha hay'adda shaqaalaha oo runtii ah loo haysto hogaamiye daacada ama gudoomiye daacada laakiin khiyaamoolo ah cabashadayadaas waxay ku saabsan tahay madaxweyne laba maalmood ka hor waxa xafiiskaaga uu kugu soo booqday kuna sheegay isaga oo war saxaafadeed si wada jira aad u wada qabateen ku yimi kuna sheegay inuu 954 macallin oo mushahar la'aan in badan ugu soo shaqeynayay qaranka waliba si dheef la'aan ah uu mushahar siiyay kana dhigay shaqaale rasmiya waxaan leeyahay madaxweyne arrinkaasi haba yaraatay wax ka jira ma jiro waxaana dhacday arrinka maalintii halkaa lagaga dhawaaqay waa lagu farxay adiga sumcad bay ku ahayd xukuumad ahaan tallaabo wanaagsan bay u noqonaysay maalintii warkaa laga dhageystay cid kasta oo arrinkaas maqashay oo dhagaha wax ka maqlaysay amaba joogtay war aad iyo aad u farxad ah buu shacabka u noqday gaar ahaanna xukuumaddaada markii la maqlay wax qabad u soo kordhabay ahayd
balse laakiin warkii shaar kale ayaa uu noo xidhay waxaannu shalay tolo ku soo toosnay haddaannu macallimiintii bilaa mushaharka ee muddada dheer dheefla'aanta ah qarankoodan tabarrucaadka ugu soo shaqaynaya haddaannu nahay ee ubadkooda u hagar baxay waxaannu shalay tolo markii aannu soo toosnay ee goobahaygii waxbarashada aannu isnidhi ka hawlgala annaka iyo maamulayaashayadiiba warkii ka duwan oo naga nixiyey ayaannu ugu nimid warkaas oo ah in 954kii uu ninkaasi kugula galay sawirka ee uu ka dhigay xaqiiq jirta inuu macallimiin bilaa mushahar hayd oo mushaharka dawladda iyo dhaqaalaha dawladda dabadda kaga jira inuu soo geliyey oo sharaf ku noqonaysa maanta shicibkaagii oo inuun ama dhalinyartii ama dadkii aan shicibkaa oo inuu aad wuxu qabatay ku noqonaysa arrinkaas wuxuu noqday dad marka hore beeroolka ku jiray wasaaradda waxbarashada oo ah wasaaradana xukunta ay u aqoonsanayd dad mushaharaysan kuna qaadanayay lacagta qof dhintay ama meeshii ka baxayo shaqadii qaranka baneeyey dabadeetana lagu buuxiyey oo wasaaradda waxbarashadu ay aqoonsanayd shayga isku beddelka loo yaqaano oo mushaharka qaadan jiray ayaa uu nooga dhigay dad dheefla'aan u soo shaqaynayay qarankan annaku waxaannu nahay kuwa isku beddelka ku qaadanayay lacagta kuwii meel la joogay laakiin ilaahay wuxuu qorun buu qofku helaa annaku maanu helin laakiin kii meel la joogaa isku beddel ku helay uu gunnaysan yahay uu mushaharaysan yahay maanta wuxuu nagala mid dhigay mid bilaa mushahara annakoo sida xaqiiqda marka la eego dastuurka sharciga marka lagu noqdo qofka bilaa mushaharka ama shaqaalaha dawladda ee muwaadinka loo baahan in la shaqaalaysiya aan annaku ka horrayno haddii aanu nahay macallimiinta ka hawlgala dugsiyada dawladda ugana hawlgala si tabarruca aanu waxaan ahay muddo macallin ilaa 16 sannadood shaqaynayay kana shaqaynayay iskuullada dawladda waxaan uga shaqaynaya si tabarruca dabadeed bari dhaweyd oo wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaaluhu ay nagu soo martay kormeer waanu aad iyo aad baan u faraxnay waxaanu isdiridday xaqiiqdii macnaha la dugsiyey haddaad helaysaa dabadeed waxa weeye bishaaray noo ahayd maalintii uu ku dhawaaqay madaxweynaha uu kula galay madaxweynaha sawirka beenta ee uu weli macallimiintii bilaa mushaharka ahayd maalintii uu aad iyo aad ayaan u faraxnay laakiin waxa taa ka dambeeyey warkaa uu sheegay inaanay waxba ka jirin haddii aanu nahay macallimiintii muddada dheer sida tabarruca waddankooga iyo dalkooga iyo ubadkooga wax u barayay taasi nama qabato markaa waxaanu madaxweyne ku leenahay ninkaa sharmaarke wuxuu sameeyey shay been aad iyo aad u weyn markaa sidaas sida macnaha sumcadda ayuu madaxweyne adinkaa dilaya markaa waxaanu madaxweyne kaga codsanaynaa in arrinkaas laga daba tego oo macallimiintaas 950 macallin ee uu sheegay tabarruc iyo dheefla'aan bay ku dhigayeen bal in macallimiintaasi waa in markaasi laga daba tegaa waayo macallimiintaas waxay macallimiin mushaharka qaadan jirtay ilaa berigii rayaal ilaa berigii asiraayo markaa madaxweyne waxaan ku leeyahay warkaa waxba kama jiraan haddii aanu nahay macallimiintii tabarruca ku dhigaysay ilaa waqtigii waanu ku dhignaa cidna nama oga marka waxa weeye madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa in xaqayagaasi in hoos loo eego. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi